بسم الله kusoo dhawaada barnaamij cusub oo aan ugu magac darno xasuus kaas oo aan doonayno in aan ku falanqeyno ama aan isku xasuusino dhacdooyin badan oo nagu soo dhacay ama inteena badan aan goobjoog ka ahayn marka ay dhacayeen. Barnaamijkan waxa uu noqon doonaa barnaamij taxanaha insha Allah. Qaybtiisa koowaadna waxaan ku soo qaadan doonaa bal muhiimadda ay leedahay in taariikhda wax laga barto. Sideedaba haddii aad u fiirsato dunida oo dhan waa taariikh ama waa wax soo laalaabanaya. Tusaale ahaan maalinta iyo habeenka isbuuca oo 7 maalin kadib soo bilaabanaya xilliga roobabka iyo xilliga jiilaalka oo markasta soo laalaabanaya, dhalashada iyo dhimashada, colaad iyo nabad. Si haddii aad u fiirsatana waxyaabaha ugubka ah ee marka ugu horreeya dhacaya aad ayay u yaryihiin dunidan. Inta badan waxyaabaha dhaca waa wax hore u soo dhacay oo la arki jiray, waxyaabaha aan weligood dhicinna aad ayay u yaryihiin. Haddii aad maalin aragto, khibraddu waxay ku baraysaa in habeen ka dambeeyo. Habeen haddii aad aragtana khibraddu waxay ku baraysaa in maalin ka dambeyso. Laakiin bini'aadamku aad ayay u xusuus yaryihiin oo waxyaabaha hore ugu soo dhacay inay hilmaamaan aad ayay ugu dhowdahay. Tusaale ahaan qofku markuu aad u baahan yahay ee wax cuno in baahi dambe jirto ma xasuusanayo ilaa ay baahida ka qabato mar labaad. Waxaa laga yaabaa qofku waxyaabo dhibaatooyin ah oo markuu soo maray inuu si fudud u hilmaamo, ama waxyaabo wanaag weyn ah oo soo maray inuu dhaqso u hilmaamo kadib markii uu dhibaato yar arkay. Marar badan qofka wax uu hore u soo sameeyey ayuu mar labaad sameeyaa, markaas baa la yidhaahdaa taariikhdii ayaa mar labaad dib isu qortay. Nin qoraa ayaa waxa uu yidhi taariikhda waxa keliya oo aan ka baranay bini'aadam haddii aan nahay ayaa ah in aanan taariikhda waxba ka baranba. Waxaana xusid mudan in markasta taariikhda la qoray ay ka yar tahay midda aan la qorin. Macnaheega waxa la qoro iyo waxa aan la qorin waxaa badan waxa aan la qorin. Sidoo kale xumaanta iyo wanaagga inta badan waxaa la qoraa xumaanta ee wanaagga lama qoro. Taariikhda inta dagaallo iyo dhimashooyin iyo dhibaatooyin laga qoray lagama qorin wanaagyadii dhacay iyo khayraadkii iyo barwaaqooyinkii dhacay. Waxaana aad u badan inta la qoray naftirkeeda in ay ka buuxaan waxyaabo badan oo aan sax ahayn, oo inta badan qofka qorayo oo sida uu doonayo u qoraa isagu markaas ama uu ujeedada ka lahay. Culamadii hore ama taariikhyahanadii hore waxa ay noo sheegeen waxyaabo badan oo dunida ka dhaca inay yihiin waxyaabo soo laalaabta oo bilow leh, dhammaad leh, haddana bilow leh, dhammaad leh. Waxyaabo badanna waxaa naloo sheegay inay isku si ku bilaawdaan, isku sina ku dhammaadaan. In badanna waynu ognahay. Tusaale ahaan qofku inuu dhasho, weynaado, kadib duqoobo waynu ognahay. Qof kastoo yar inuu weynaa doono waynu ognahay. Qof kastoo weyn inuu dhimo doono waynu ognahay. Waxyaabo badan oo waxaa jira sidaas oo kale ah oo culummada ay nooga digeen ama taariikhyahanadu ay hore noogu sheegeen in ay la mid yihiin bini'aadamka oo kale, sida bini'aadamku ku bilowdo kuna dhammaado, in waxyaabo badan oo dunida ah ay ku dhammaadaan kuna bilowdaan. Tusaale ahaan qoraacaan ah ayaa laga wariyey inuu yidhi nolosha bini'aadamka iyo nolosha boqortooyooyinka isku si ayay ku bilowdaan, isku sina way ku dhammaadaan. Tusaale ahaan wuxuu noo sheegay in qofka bini'aadamka asoo daciifa dhasho uuna markaas u baahan yahay taakuleyn badan. Dowladaha qaarna markay dhalanayaan waa sidaas oo kale, ayagoo daciifa ayay dhashaan, in ayaga wax lagu darmo ugiye waxba lagama helo. Kadibna dowladahaas sidii qofka bini'aadamka ahay way soo yara koraan, way xoogeystaan, cilmi ayay helaan, ilbaxnimo ayay helaan, kadibna waxa ay bilaabaan inay ayagoo daacad ah sidii qof 30 jir ah ama 22 jir ah inay si fiican u shaqeeyaan, wax soo saaraan, waxna laga helo. Kadibna waxay gaarayaan heer ay isla weynaadaan oo ay cidna la heshii waayaan, markaasna ay qasab noqoto in la rido. Qorayaal kale waxa ay tilmaamaan in dowladaha qudhoodu ay isku si ku bilowdaan, isku sina ku dhammaadaan. Tusaale ahaan dowlad ayaa dhalanaysa iyadoo aad daacad u ah, daciif ah, wax badan ayay qabanaysaa, aad ayaa loo taageerayaa. Dowladdii markii ay ilbaxdo oo heerar badan gaarto, dhaqaale hesho, cilmi hesho, aad ayay isula weynaanaysaa. Markaasna waxaa soo baxaya kuwa aan xadaaradda dowladda haysata aan hayn, systemka sida uu u socda aan warkayn, waxaan wax iska fudud u moodan, markaas bay dowladda tuuraan ama ay ka ridaan qadka. Laakiin nasiib darro kuwii dowladdaas riday oo qorayaasha qaar ay ku tilmaamaan inay yihiin marka hore wuxuush ama barbaria,
kuma tusaale qaataan wixii ku dhaca dowladda hore ee waxyaabihii ay dowladda hore ku diidanayeen ayay ayagana sameeyaan markaas baa haddana kuwo kale oo ayaga ka hooseeya ayaa haddana rida cyclekaas sidaas ayuu ku socdaa ilaa qiyaamaha in kuwa qabsadaan markay baxaan isla weynaadaan kuwo kaloo aan waxba ogeyn ay tuuraan kuwii ayagana ay sidii oo kale noqdaan kuwo kale ay tuuraan su-aasha meesha taal ayaa waxa ay tahay bini aadamku maxaysan waxba uga baran wixii hore ugu soo dhacay ama ay hore u soo arkeen maxay u ilmaansho dhow yihiin gabagabadii qoraa ayaa yidhi asagana ninkii raba inuu arko mustaqbalka ama inuu ogaado mustaqbalka waa inuu bartaa taariikhda maxaa yeelay waxyaabaha dhici doonoo dhan oo wax hore u soo dhacay qoraa kalena waxa uu yidhi dadka aan taariikhda baran waxay ku soo ceshaan taariikho hore macnaha qaladaad hore u soo dhacay oo haddii ay taariikhda wax ka baran lahaayeen ay ka digtoonaan lahaayeen ayay dib ugu dhacaan halkaas waxaa kaaga muuqda in bini aadamku heer kasta uu joogo aysan waxba ka baran wixii lasoo maray sidaas darteed ayaan doonaynaa barnaamijyada noocaan ah inaan isku xasuusino waxyaabo soo dhacay oo aada muhiim u ah oo haddii aan ogaano ay qasab tahay inaan ka digtoonaano waxyaabaha soo socda